waajibka ugu horeeyo ee jaceylka waa in lis dhageysto. buugiga jaceyl aan dhamaad lahayn waxaan ku sii saaxiibadeyda ragga ah talooyin aan ugu magac daray sira haween. dumarka waxay aad u jecel yihiin qofka si fiican u dhageysta tabashooyinkooda, dhibaatooyinkooda, fikradahooda iyo dalacayntooda. markay hadlayaan waxay jecel yihiin inay macluumaad badan ka bixiyaan dareenka ay dareemayaan. marka loo fiiriyo ragga oo iyaga jecel hadalka inay soo koobaan. mararka qaar waxaa laga yaabaa marka aad fahmi weyso ficilkeeda ay dareenkeeda ku cabirto hab anaga rag ahaan aan u fahmayno inay ka badbadinayso, laakiin ayada ujeedada ay tahay faham baahideeda. waxay ku leedahay aniga keligii ayaa wax kasta sameeya. waxay ula jeedaa iyo caawi oo hoosh iga fududay. waxay ku leedahay adiga maba i dhageysatay. waxay ula jeedaa i dhageyso oo ila sheekayso. waxay ku leedahay ima jeclid aniga. waxay ula jeedaa i tusi jaceylkaaga. waxay ku leedahay guriga maba joogtid waqti kasta waad maqan tahay. waxay ula jeedaa kalinimo ayaan dareemayaa, agtaad inaan joog ayaan rabaa. waxay ku leedahay maba i daryeeshid, daryeelkaama helo. waxay ula jeedaa inaad ila fadhiisato ayaan u baahanahay. waxay ku leedahay gurigan waan ku dhaxwaashay ilmaha aan la joogo. waxay ula jeedaa waan daalay, garabkaaga ayaan rabaa. saaxiibkayga qaaliga ahow, waxyaabaha lagaa rabo marka aad hadallada maqasho ma ahan inaad sii xanaaqdo ama aad dul istaagto xaraf xaraf kadibna aad u fasirato sida ay tahay, balse waxaa lagaa rabaa inaad fahamto iyada adigoo si fiican u fiirinaya, u muujinaya inaad dhagaysanayso. waxyaalaha ku qaldan tahayna qaladka aad qiranaysid, waxyaalaha kale aad fahamsiinaysid. mararka qaarkoodne haddii aad aragto inay wax tabanayso aad weydiiso maxaan sameeyaa ii sheeg, sidee jeceshahay inaan kuu sameeyo. mahadsanid. salaam.